magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar waxa gaaray murashaxa madaxweynaha Faarax Cali Shire kaasi oo maalmihii la soo dhaafay marayay deegaano ka tirsan Puntland. Faafahinta warkaasi waxa inoo haya Muxidiin Hiirad Kaatun. gobolka Karkaar bay ciyaartadu daahsantahay ilaahay baan ku baryeynaaye mahad ku waar ilaahay baan ku baryeynaaye mahad ku waar gobolka Karkaar bay ciyaartadu daahsantahay rabbi ilaahay baan ku baryeynaaye mahad ku waar waxaa magaalada Qardho si weyn loogu soo dhaweeyay musharaxa jagada madaxweynenimada ee dawladda Puntland ee 2019 Faarax Cali Shire waxaana looga hortagay duleedka magaalada Qardho halkaas oo shacabka qaybihiisa kala duwan ay ku soo dhaweeyeen musharax Faarax Cali Shire ayaa gacan qaaday dhammaan dadkii soo dhaweynayay waxaana loo soo galbiyay gudaha magaalada Qardho waxaana uu dadweynaha kula hadlay iridda hore ee hotel Gufure halkaas oo uu ku soo dhaweeyay gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee magaalada Qardho Cabdirasaaq Xasan Faarax aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin runtii saacado badan baa waxa taagneedeen qoraxda arintani waa arintii looga bartay reer Qardho soo dhaweyntan aadka u quruxda badan waxaan rajaynayaa inaan isu sabirno si uu madaxweynuhu idinka mahad celiyo soo dhaweyntii aad u sameyseen aad dhageysi fiican u sameysaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin ugu dambeyntii waxa halka isagu ka hadlay Faarax Cali Shire waxaana uu mahad celiyay dadka reer Qardho sidii ballaarayd ay u soo dhaweeyeen waxaana uu sheegay inuu muddo 3 bari uu la joogi doono waxaan imi magaaladaydii waxaan imi dadkaygii waxaan imi eheladaydii aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa haddii rabbi idmo muddo badan baan soo soconay meelo badan baan soo maray meeshii aan ku nasan lahayn weeye waa idinla joogayaa maalmahan 2 bari 3 bari haddii rabbi idmo waynu kala boganaynaa waa iswaraysanaynaa waxa aan wadaan ka sheekayn doonaa waxa aan doonayaan ka warrami doonaa waxaad qabtaan baa ii sheegi doontaan haddii rabbi idmo sunni bay noqonaynaa wax badan baan wadaa haddii rabbi idmo fikrado badan iyo maxaan ku raahdaayay waxqabad badan iyo doonis badan waa ogtiinoo maanta waxaa u socdaa kursigii madaxweynaha Puntland haddii rabbi idmo meesha aan ka bilaabayana waa halkan oo gurigaygiiya halkan weeye hawshiisa meeshaan ka bilaabayo aad iyo aad baa u mahadsantihiin Muxidiin Hiirad Kaatun telefishinka SBS magaalada Qardho.